maalinka qiyaamaha bani aadanka marka la soo saaray banka qiyaamo la joojiyo ayagoo qaaqaawan oo cagaagan oo qof walba sidii ilaahay ku abuuray ah oo dhar la'aan oo kaba la'aan ah oo tintii uu iska xiiray maalintii uu yaraa laga xiiray ilaa uu dhimanayay isagoo tintii qaba ayuu banka qiyaamo iman doonaa qofkuba la yidhi ciddidii lagaa guray maalintaad dhalatay ilaa aad dhimanaysay aad iska guraysay wixii ciddii jarkaaga ka go'ay adigoo wata ayaa banka qiyaamo iman doonaa deedna markaasaa la odhan doonaa qaala kam labithtum fi lardi cadada siniin arladii dusheedii imise sano ayaad ku soo nagaateen qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowmin fas'ali alcaadiin maalin ama maalin badhkeed bay annaka nala tahaye bal kuwa wax tiriya weydiiye bay markaa bini aadamku odhanayaan hadduu 100 sano qofka adduunka dusheeda soo joogay iyo hadduu 500 oo sano uu soo joogay iyo hadduu 1000 sano soo joogay waxay odhan doonaan maalin ama maalin badhkeed baan adduunka soo joognay bay nala tahaye tiradiiba garan mayne tiradiibaaba naga qaldane bal kuwa wax tiriya weydiiye bay odhanayaan qaala in labithtum ilaa qaliilan low annakum kuntum taclamuun afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun markaabaa lagu odhan doonaa nolosha adduunyada aad soo joogteen in yar baybay ahaydba wax yar marka loo eego noloshan dambe ta qabriga ta qiyaamaha ta jannada iyo naarta lagu dhex noolaan doono marka loo eego noloshii adduunyada inta la soo maray in yar bay ahayd baa la odhan doonaa in yar ma waxaad u malaynayseen in dheeldheel laynii abuuray oo xagga alla aanad u soo noqonayn baad moodayseen baa lagu odhan doonaa dugsiga casriga ee daarul hijra islamic online wuxuu kugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab online ku baran karto qur'aanka kariimka hingaada iyo culumta shareecada kama marna luqadda carabiga iyo tarbiyada awlaadda kala xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo afa xasibtum ma waxaad u malaynayseen annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun ma inaan dheeldheel iyo ciyaar inii abuurnay miyaad u malayseen baa la odhan doonaa oo xaggan loo soo noqon doonin may cibaadaa laynii abuuray ilaahay macrifadiisaa laynii abuuray ilaahay inaad raalli gelisaan baa laynii abuuray xaqa ilaahay nigu leeyahay inaad adduunka dusheeda ku soo gudataan baa laynii abuuray xuquuqda bini aadamku ay nagu leeyihiin inaad adduunka dusheeda ayadana iska guddaan baa laynii abuuray meeshana waa bankii qiyaamo weeyaan waa meesha khalaa'iqda oo dhan lagu xisaabin doono weeyaan caaisha radiallahu canha umma almu'miniin ayaa oyday markaabuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaisha maxaad la ooyeysaa balii sheeg markaabay tidhi yaa rasuul allah qiyaamaha ayaan xasuustay waan ooyey markaaye maalinka qiyaamaha eheladiinna ma u shafaaco qaadi doontaan oo wax ma tari doontaan markaabuu nebigu ku yidhi caaishay 3 meelood ma inta kale mise 3 meelood marka la marayo 3 meelood marka qof walba uu marayo qofna qof xasuusan maayo buu nebigu ku yidhi ama 3 mawaatina falaa buu nebigu yidhi caaisha 3 meelood marka la marayo qofna qofka kale ama qofka ag socda ama qofka qaraabadiisii iyo ehelkiisii xasuusan maayo buu nebigu yidhi cinda almiisaan ayakhifu miisaanuhu am yahqulu baa nebigu yidhi ilaa uu qofku kala ogaado miisaankiisa khayrkiisaa cuslaani doona mise sharkiisaa cuslaani doona ilaa uu kala ogaado labadaa ilaa uu kala ogaado midkee cuslaanaya ilaa khayrkaad adduunka ku soo shaqaysatana miisaanka kafadana laguu saarayaa shar wixii adduunka dembi iyo macaasi iyo khaflad kaa soo dhacayna kafadda kale ayaa laguu saarayaa wanadacu almawaasiina alqista liyowma alqiyaamah falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana mihqaala xabbatin min khardalin aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin ilaahay caza wajalla waa kii ku lahaa wanadacu almawaasiina alqista liyowma alqiyaamah miisaanka cadaaladda ayaan banka qiyaama khalaa'iqda u soo dhigi doonaa baa ilaahay yidhi falaa tudlamu nafsun shay-a nafna maaragtaanay wax yar la dulmin maayo shay wax yar weeyaan la dulmin maayo waxa liya wixii ay adduunka dusheeda ku soo kasbatay hadday khayr soo shaqaysatay iyo hadday dembi soo shaqaysatayba ilaahay wuxuu leeyahay annakaa xisaabtooda ku filan oo ka xisaabin doona baa ilaahay yidhi wa cinda asiraad buu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam iyo jidka siraad jidka siraad marka la marayana qofna qofka kale xasuusan maayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa meesha
saxaabiga cabdullaahi bnu rawaaxa radia allaahu canhu allah raalli ka noqdee habeenkii xaaskiisa isagoo la jiifa weliba dhabteeda ku jiifuu ooyey baa la yidhi oo lilmaa ka daadatay markaabuu iyadii buu eegay iyadiina markaa way la baroorato way la oyday markaabuu ku yidhi maxaad adu la oyday buu yidhi oo markaabay tiri dee adoo ooyayo maan ku arko anna waan kugu daray ku tiri waan kula ooyey markaa buu yidhi anugu waxaan xasuustay aayad ilaahay kitaabkiisa ku taallaan xasuustay buu yidhi wa aayadee wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya huma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya wa in minkum mid ininka iniga mida ma jiro oo muusan ahaanin hadduu jiro baa ilaahay leeyahay naarta uu galayaayo uu ku aroorayaa oo arrinkaasi waa arrin ilaahay uu go'aamiyo la faysaleeye weeyaan humma intaa kadib baa ilaahay yidhi nunaji aladiina ataqow adduunka dusheeda kuwii ilaahay ka baqaayay ee alla ka cabsanayay waan badbaadinaynaa baa ilaahay yidhi wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya kuwii daalimiinta ahaana naarta dhexdeeda ayaan ku dhaafaynaa iyagoo jilba jooga baa ilaahay yidhi aayadda tafsiirkeega saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin qola waxay yidhaahdaan naarta waa la galayaa oo waa lagu wada hoobanayaayo waa lagu daadan doonaa muuminka wuxuu ilaahay uga dhigayaa bay yidhaahdaan bardan wa salaaman sidii nebi ibraahim calayhi salaam naartii loo shiday ee in lagu gubo loogu talagalay ilaahay qabow iyo maaragtayna nabadda uu uga dhigay ayaa muuminka looga dhigayaa halka asxaabta rasuulka qaarna ay qabaan maya waa jidka siraad weeyaanoo aayaddu waa jidka siraad waxay sheegayso cabdullaahi bnu rawaaxa xaaskiisa dhabteedu ku ciyaarayaa meeshaasi waa meesha qofku maaragtaane marka uu joogo ma xasuusto xataa aakhire waa iska ciyaaraayo uu iska baashaalaa laakiin halkaa isagoo joogo haddana ilaahay xasuustu aakhiradii xasuustay marka naarta in la galayo oo jidkaa la dul marayo qur-aanku sheegay buu yidhi waan maraya anigu laakiin kuwa ka badbaadaya alla ka cabsiga lagu sheegay ma ku jiraa mise kuma jiri taaba ii kala caddayn buu yidhi markaas nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay halkaa jidka siraad marka la marayana qofna qof xasuusan maayo meesha saddexaad uu nebigu sheegay waxa weeyaan cinda alkutub qofka mar walba kitaabkiisa la siinaya buu nebigu yidhi ilaa uu qofku kala ogaada ma gacanta midig buu ka qaatay mise gacanta bidix ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura waama man uutiya kitaabahu waraa'a dahrihi fasawfa yadcuu thubuura wayaslaa saciira inahu kaana fii ahlihi masruura labadaba ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ka kitaabka gacanta midig ka qaatana baa ilaahay yidhi xisaab fudud buu markaa helayaa uu mutaysanayaa ehelkiisiina xagga ay joogaan buu u gadoomayaa u noqonayaa buu ilaahay yidhi ehelkaagu kuwan adduunka aad dhex joogta maahin ehelkan adduunka aad dhex joogto waa ehel laynagu imtixaamay weeyaan gabadha ninkayga waa lagu imtixaamay ninkana xaaskiisa waa lagu imtixaamayaa gabadha ilmaheega waa lagu imtixaamayaa ubadkanaad haysatoo dhan waa lagugu ikhtibaarayaa innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegoo yidhi innamaa waa kalimatulxasri weeyaan in kala maahine awlaaddiinnaas iyo xoolihiinnaas waa fitno maxaa loo isticmaalaa waxlee wixii ilaahay taacaddiisa digrigiisa iyo maqsadkii ilaahay kuu abuuray kaa mashquulinaya oo dhan waa fitnad weeyaan waa fitno xaqiiqo maaha qof walba ehelkiisa xaqiiqada hadday gabarh tahayna hadduu nin yahay qof walba kitaabka midig markuu gacanta midig uu ka qaato xisaab fudud baa la xisaabin baa ilaahay yidhi ehelkiisiina xaggay joogaan buu u gadoomayaayo ehelkiisii runta ahaa ayaa albaabka jannada ku soo dhoweynaya oo ku istiqbaalaya hadduu nin yahayna xawralcayntiisii iyo gabdhihii muuminaadka ilaahay u qadaray baa iyo albaabka ku sugaya hadday gabadh muuminada ay tahayna ayadana zawjkaygii dhabta ahaabaa albaabka jannada ku sugaayo le waad baastee soo soco buu leeyahay imtixaanka waad ku baastee soo soco imika inaku kuwa meelahan jaamacadaha dhigta imtixaanka baasaba iyo imtixaan inay heleen baad moodaysaa iyo kuwa dhoofka usoo dhacay iyo iblaayo ducadii baa laga aqbalo waa la qaaday
halkee la geeyey sax maaha imtixaanka runtu waxa weeyaan waa ka banka qiyaamo weeyaan waa kay Caaisha la ooyeysay radiyallahu anha almu'miniin zawjadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee mubashirada ahayd ee jannada loo bishaareeyey xaasaska nabigu siday u dhan yihiin jannada waa loo wada bishaareeyey بدون الاستثناء waayo dumarka ilaahay nabi maxamed uu u doortay waa kulligood janna adduunka dusheedana xaasaskiisii bay haayeen aakhirana waa xaasaskiisii ogaada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna jannada waxa uu ku leeyahay maqaam almahmuud a'la darajatin fil janna weeyaan ayuu nabi maxamed ilaahay siiyey waa nabigu nagu yidhi marka aadaanka aad maqlaysaan erayada muadinku uu leeyahay ka daba dhaha buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam deedna markuu muadinku aadaanka uu dhammeeyana igu salliya aniga deedna ilaahay wasiile ii weydiiya fa innahaa manzilatun fi ljanna laa tanbagii licabdin ila min cibaadihi wa arjuu an akuuna huwa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sa'ala allaha liya alwasiilata حلت له شفاعة وصيل إلهي ويدية واللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة ودعدس وصيلة أبو نبي معنا يوحيري ومنزلة جنة كتشا لويان أدون كليو أدومها إلهي كمدا أمبا حبونته هلي دونا وحانا كل رجاء بابو نبي أدون كاسيونو يحي أنيق أبو رسولك يدين qofka ilaahay shafaacadaas qofka ilaahay wasiilada ii weydiiyay buu nabigu yiri markuu aadaanka maqlana isagana shafaacadeeda u waajibta buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam saddexda meelood buu Caaisha marka la marayo qofna qof xasuusan maayo jidka siraad iyo miisaanka iyo kutubta halka laga qaato qofna midigtu ka qaadanaya kuwa midigta laga siiyo Allah inaga dhigo amal ma hayno لكن نحريست إلهي برنجينينا صوما هنده إلهي نحريستي سكقوسا مينو ورحمتي وسعت كل شيء نحريست إلهي بوحو البكا واسع سنو كبالارن بركة دين تا إسلام كإلهي نسيي وعنا النعمة أرنو نعمة إلهي وقمها نغنويان إسلام أدو يده تتكاس cid walba ilaahay adduunka uu siiya kuwa looda caabudayo ilaahay siiya kuwa qoriyaha caabudayo ilaahay siiya gaaladan ilaahay ba aan garanayna mulxidiinta la yiraahdo ilaahay siiya qiimo male adduunyadu qiimo male bal gaalada waxa loo siinaya waa in lagu qabta iyaka fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum inma yuridu Allahu bihim inma yuridu Allahu بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله ليعذبهم بها قال هذا أيا إلهي كل يهي فلا تعجبك أموالهم حوله فرحا بدن إنسين أيكا أيانا كياب قلين بنبي قلقو يري المهو كان عد قرح ذا بدن ليليه هنا درق سبع بعب بربورنا وحبها الله يابن بنبي قلقو يري هاي waxaan doonaynaa baa ilaahay adduunka dhexdeeda iyagoo waxa oo dhan haysayna ku dhex cadaabnaan doonay baa ilaahay yidhi adduunyadu hadday qiimo leedahay nabigeena Muhammad calayhi salaatu wasalaam iyo reerihiisii baa adduunka la siin lahaa qudway noo yihiin innaka qudwo xagga iimaanka xagga alla ka cabsiga حق حشوتك حق علمك حق زهدك حق إنفاقك حق أخلاقك يا قيمك يا تقول ديان من كان مستنا فليستدن بمن قد مات ابن عبد الله بن مسعود أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه بقول يلا باتن كن أو دينار أو درهم أو دينار أو درهم أيوة معاوية أصدر عائشة رضي الله عنها يضع صوما
gabadhii jaariyadeedii u shaqaynaysay ku tidhi bixi reerkaasi waa masaakiina intaa u gee reerkaasi waa agoona intaa u gee taasi waa carmala intaa u gee taasi waa gablamo inamadeedii baa jihaadka kaga dhintay intaa u gee kuwaas waa qurabaaya u gee kuwaas waa musaafiriina u gee gabalkiina uu dhacayaa wayna sooman tahay inantii khaadimaddu waxay moodaysay markaa inay wax hoosta ku haysay reebtay markaa bay tidhi hooyo afurkii baa la gaadhay afurka maxaan inoogu soo iibiyaa balkeen markaa bay tidhi oo xoolaha intaa leega farriqaayay maad wax nooga reebtidaa bay ku tidhi adigu see tahay caaisha radiallahu canha nafteeday ilowday nafteeda xataa afurkii ay ku afur lahayd iyadii khaadimadeedu ayay xoolaha intaa leega loo keenay ay ka reeban weyday waayo darsigaa meeshee bay ka barteen nebigay ka barteen calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed bay ka barteen nebi maxamed baa la yidhi iyo dhaqaale adduunyo aqal habeen kuma wada hooyan baa la yidhi nebi iyo adduunya meel ma wada seexdaan maadaama qoyska nebi ay ka hadheen waxay tidhi dee lacagagteeda aniga kuma baridee inta aan xoolaha farriqaayay adaaba ogaaya maad noo sheegtidaa bay ku tidhi afur baad nooga reebi lahayde iyadiibay dib u qabsatayba iska daa bay ku tidhi ilaahay wuxuu noo keenu mancunaynaaye innaguna maanta haweenow dhegaysta xoolaheenna u badan waxaa laga yaabaa inaan ku bixinno maaragtaan isqurxinteenna waxaa laga yaabaa inaad ku bixisaan maaragtaan aqalka qurxintiisa caaisha radiallahu canha aqalkay ku noolayd waa aqalka ay ku noolayd waa aqalkee cumar bnu khadaab radiallahu canhu intuu noolaa ayuu ku yidhi caaishaay umma almu'miniinay haddaad dhimashada aad iga horrayso meeshaa yaree kaaga hadhay eed seexanaysid waan kuu daysan in lagaaga dhiga qabri nebiga agtiisa oo zawjkaagii aad ag seexatid waan kuu oggolahay laakiin haddaan hortaa kaa horreeyon hortaa dhinto abubakar oo saaxiibkayya iyo nebigaygiiyo rasuulkaygiiya labada agtooda ha laygu duugee may oggolaanaysaa markaa bay tihi cumarow meesha anigaa diyaarsadoo ku talagala in laygu duugee laakiin haddaad iga horrayso waan kuu daayay ku tidhi haddaad iga horrayso halka nebigeennaa ku aasan calayhi salaatu wasalaam waa zawjkeedii halkaana aabbaheed abubakar aqalka intii hadhayna markaa iyada seexata bal u fiirso maalintii cumar bnu khadaab radiallahu canhu la duray midida la geliyey ayuu inankiisii cabdulaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu cabbaas raggii markaa maydhayey buu ku yidhi dhegaysta anigu waa taydii baa ii timiday shahaadadan ilaahay weydiisanayey ayaa ilaahay madiine iigu keenee haddaan dhinto maydkayga qaada caaisha radiallahu canha aqalkeeda hordhiga ha odhanina amiirkii mu'miniinkaasina ha odhanina waxaad tidhaahdaan maydkan waxa weeyaan waa addoonkii ilaahaya cumar bnu khadaab maydkiisiiye ma oggolaanaysaa nebiga iyo saaxiibka abibakar in agtooda lagu duugo ma u oggolaanaysaa hadday ii oggolaatana halkaa igu duuga hadday maya tidhaahdana qabuuraha muslimiinta igu aasay buu yidhi asxaabtaydu ii geeya buu ku yidhi way soo qaadeen maydkiisii bay markaa hordhigeen aqalkii yaa umma almu'miniin way soo baxday waa magaaladii madiina aqal magaalada madiina kuma yaalla ilaa waa laga barooranaya cumar baa loo barooranaya amiirka mu'miniinta shakhsi qiimo leh oo ummadda nebi maxamed macno weyn ugu fadhiyey ayaa adduunka ka baxay maalintaas aad baa looga naxay dhimashadiisii caaisha radiallahu canha oo murugaysan ayaa soo baxday markaasay ku yidhaahdeen maydkii waxaan wadnaa cumar bnu khadaab maydkiisii baan sidnaaye ma u oggolaanaysaa meesha in lagu aaso oo qabri uga yeello markaa bay tidhi haa intuu noolaaba i weydiisto waan u oggolaadee ii kaadiye bay tidhi alaabta aqalka ii taallahan kala soo baxe intaan u socdo waa intaa i dhegaysta alaabtay soo qaadanaysa waa alaab intee leeg bay kula tahay mara suufa oo weliba marooyin badan la isku doltolay ah oo dhinacna ay ka goglato gogol ka dhigato oo dhulka ay iska xijisiiso dhinacna ay ka huwato iyo weel ay biyaha ku dhaansato labadaa keliya bay aqalka kala soo baxday baa la yidhi iyadoo sidaa u hagoogan